السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسدو هذا عاوة يبوغاني Headway Beginner 5th Edition Students Book Unit كوغري oo la yiraahdo Hello hadduu ilaahay macaawa halkan ayaan kasii wadi doonaa anagoo fasiri doono oo dul istaagi doono qayb walba kusoo dhawaada bal aan sii ambaqaadno Tom, this is Carlos. Carlos, this is Tom. Hello. isbarashada ayaa halkan laga hadlayaa sidaad ku arkaysaan pageka dhinaciisa midig Serena iyo Tom ayaa wada hadlaya Serena waxay tiri Tom this is Carlos Carlos this is Tom tusaale laba qof oo saaxiibaha ah ayaa kaa hor yimi ama aad isku meel timaadeen waxaad doonaysaa inaad isbarto labada qof mid ayaad la hadlaysaa tusaale oo kale Tom waxaad leedahay Tomo this is Carlos qofkani waa Carlos haddana qofkii kale ayaad la hadlaysaa Carlos so this is Tom kani waa Tom labadooda ayaa isla hadlaya marka kadib Tom hello Carlosna markaa kadib ayay dhahaysaa hello Tom haye balaan sii wadno Carlos. Hello, Tom. 1.4 Nice to meet you. 1.4 qaybtii afraad ee aad arkaysaan hoos nice to meet you ereyga la dhaho qaabkee ayaa loo isticmaalaa halkan ayaad ku baran doontaa hadduu ilaahay idmo bal aan sii ambaqaadno oo aan aragno labada qof ee meesha ku wada hadlayo qaabka ay u isticmaalaan nice to meet you ereyga loo yiraahdo bal aan sii ambaqaadno akhyaarey Hello, my name's Paul Bartosh. Hello, I'm Sarah Taylor. Nice to meet you. Nice to meet you too. okay bal ereygaasi nice to meet you too ah qaabkay u isticmaaleen Paul iyo Sarah bal aan kuurgalno Paul ayaa wuxuu yiri hello my name is Paul Bartos hello haye my name magacayga is Paul Bartos magacayga waa Paul Bartos Sarah waxay tiri hello I am Sarah Taylor ayaa nahay nice to meet you kulan wacan nice to meet you kulan wacan Paul wuxuu yiri nice to meet you too kulan wacan oo la mid ah nice to meet you too laba qof oo isku cusub ayaa halkaas isku aragtay midkii hore markuu salaamay hello my name is Paul Bartos uu yiri gabadhii waxay tiri hello my name is Sarah Taylor nice to meet you so qofka markii uu kula kulmo oo aad magacaaga u sheegto kadib ayuu nice to meet you ku dhahayaa marka nice to meet you da ma hormarto